waxaa aad u badan marxaladaha kala duwan ee adag ee uu dalku marayo in aad loo baahiyo oo waliba warbaahintu ay aad u baahiso waxaa ka mid ah mushkiladaha kala duwan ee dalka Soomaaliya ka dhaca qaraxyada siyaasadda qalifsan iyo xaaladda guracan ee dalka ka jirta laakiin waxaa jira sheekooyin hoose oo runtii u muuqda kuwo wacyigoodu uu kor u kacsan yahay kaasoo ay sameynayaan ummad Soomaaliyeed oo ku nool qaybo ka mid ah gobolada dalka عبد الفتاح برهان iyo waliba Cabdullaahi waa saddex wiil oo Soomaaliyeed waxaana ay jiraan da'ahan 10 ilaa 12 waa saddex wiil oo hal iskuul dhigta waxa ay arkeen marxalad adag oo ay dad dib ku qabaan iyo baabuurtaba waxay la kulmeen meel buunda ah oo waliba buunda yar ah oo baabuurtu ay maraan haddana baabuurtu ay ku qalibmaan sidoo kale dadka waayeelada ay ka dhacaan halis u ah caruurta kadib go'aan cajiib ah ayay qaateen go'aankaasi oo ay doonayeen in isla buundadaasi ay ku dhisaan caruurtaas yar waxay isku dayeen inay aruuriyaan lacagtii ay buundada ku dhisi lahaayeen waxa ay qaadatay muddo 5 bilood ah in ay lacagtaasi aruuriyaan waxaan doonayaa in aan bal idin dareensiiyo oo aad ogaataan qaabka ay lacagtaas u aruuriyeen halka ay ka keeneen talaabooyinka ay qaadeen waxa maskaxdooda ka guuxaya iyo waxa ay doonayaan dalkooda hooyo inay u qabtaan isoo raaca السلام عليكم عليكم السلام أبتي هي سيتها في عنها هي حقا دين عن سوستك مقعد شك برهان محمود عبد الرشيد برهان محمود عبد الرشيد برهان محمود عبد الرشيد برهان kusoo dhawow theater production waxaan filayaa da'daadii sheeg intee tahay da'deeda waxay tahay 12 waaya burhaan sheeko cajiib ah barnaamij cajiib ah ayaa sameyseen buunda ayaad hadda dhisaysaan maxay tahay sababta idinku kaliftay inaad buundadan sameysaan waxay tahay sababtoo ah waxa aragnay dad badan oo muxuu ahaa ka dhacay maaliyeed macala indhahayga waxa ku arkay gaari muxuu ahaa bajaaj ku dhacday ninkuna dhaawac weyn baa gaaray aniga markaas ahmigay wuxuu noqday inaad buundadan sameeyo marka buundadii lacagteeda waa aruurnay waxa aruurnay 5 bilood ana waxa soo saarnay qofkiiba $20 marka saddex wiil baan ahayn qofkiiba $20 uu keenay $60 buu noqday $60 waxa ku sameynay hadeer ahmigay ku qaadnay inaan anaga hadeer sameeyno lacagtaas xageeba intee ka keenteen lacagtaas waxa ka keenay baragtaanka iskuulkeena oo muxuu ahaa break time break time ana lacagtii aad cunada ku cun lahayd baa keenna sabab sida u daaweyno buundadan sida buundadan u sameeyno ya lacagta break time ka kaliya miya mise intaas kaliya maad aruurseen mise lacagtii gaadiidkan oo ku darteen lacagtii gaari macala ku raaci lahayn waa ku daran maxaad marka hadii baabuurka lacagta aad ku raaci lahaydeen aad aruurseen maxaad iskuulka ku gaari jirteen iskuulka waxa ku gaari jirnay lug waa dheereen jirnay marka saacada isku qaban jirnay dheereeno markaas saasa ku aanay haddana waxa sii samay lacagta marka aruurnay oo maantana waa ku faraxsanahay inaa guusheena gaarnay waxa arnay hadeerna hawsha waa wadnaa maxaa kugu kalifay inaad adigoo yar oo lacag badan aanan helin muxuu ahaa aan nin maaragtay maanta lacag badan ay soo galaysa aan ahayn arday ah shaqadan culus inaad isku xil saarto maxaa kugu sababay sababta waxa igu sababay wadankayga weeye wadankan waa wadankayga hooyo weeye inaan sameeyna xaq baa u leeyahay qof alla loo sameeyaa xaq buu leeyahay hadda aan wax sheegayaa nimanka muxuu ahaa taajiriinta oo lacagta badan
ودن كان ودلكي ودن كان ودنكيني ودن كان سميستا أنا وحير بهدري قبنا وحير قبنا لكن وحا بلن قادنا إنا سي سميدنا waxyaalo badan oo muxuu ahaa meel wax ka dhacaan oo buundooyinka halkaas iyo laamiyo jaban inaan sii dhisano babalan qaadana dadka intaad shaqadan wadeen waalidka iyo sababta uga qariseen maxay tahay hooyo iyo inaad ogeysiisaan maxaa ugu diideen inay ogaadaan sababta waxa uga diidnay hooyo waxa hadii kale wax dhaasa lacagta naga jirno wax dhaasa bartaanka lacag nima siin sababta lacagtiin cuna أنا مركا حوجا بدن واحد بدن أروني أو واحد حوجا يرنو هرسيهن بوشرني هاي سياس ويا لعقتين واكن سنة مركا لعقت كل سنة ويكفر حدا يقف لا ويكفر حا ويكفر حدا ما أنت أنا وقف ويكفر حسنها إن الشغل أوكي كويسين إن تبدن بقى كداونا ده أدب ويرتهاي قرشة ده أدب وبدن تهاي indhaha ilinta ku taagan waxay muujinaysaa inaad nin wadaniya tahay markaad barbaartid oo horumar badan gaartidna waxaan filayaa wax badan oo kale ka duwan inaad dalka u qabatid dhalinyaro badan baa ku daawanaysa oo Soomaaliyeed oo caalamka meel kasta ay joogaanba adigoo hadda garow jooga maxaad fariinaha oo aad dhalinyaradaas iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan qabyaalada iyo wax badan ku mashquulsan qaybtood aad kula talin lahayd waxa kula talin lahaa qof allaale hadaa qof wadankaaga weeye lacag yarow ama lacag badno soo shaqayso lacagtaada wadankaaga meel adu ka jaban yahay meel kusbiso sababta hadda waa aragtan wadamada kale quruxdooda qof allaale muxuu ahaa markii geedo badan baa ku yaala geedahaas qof baa wax ku sameeyay lacag la'aan sababta wuxuu leeyahay wadankayga waa sameeysta muxuu hadhowna marka wadanka tagto wax lagu kafaanaya wadankayga waa sameystay marka ciid baa ku qoonaya wadankaaga ma sameysan niyadan waxna kuuma jiraan haduu sahamnigaaga ahaan wadankaaga inaad sameysatid wadankaaga saas si xun buu jabaya macna jishir baa ku dhacaya marka dadku waxa uu sheegi lahaa qof walba hamnigiisa gaaro oo wadankiisa wax u qabto muxuu meel hadii wax ka dhacaan oo meesha dadka la tanaasul oo wax ka qabto uusan ku fiirsan oo maxaa ha qof daawo taastay wax awal baa xaliga flipkii forma qabato marka waxa sheegi lahaa maxaa farkii forma qabatay dadka dhan haas wada kaashtaan oo qof walba marka wax ka dhacaan meesha la yimaado oo hala fiirsado oo dadka hala naxo qof haduu san xariis lahayn waxaan ku dhacayaan oo muxuu is ogeyn wadankiisa haduu maanta shaqo gaaro meel dad dhaawacmaan uusan muxuu ahaa dadka dhaawacoodii lacag keen dhiigiisa u shubayn muxuu qaban karaa dalkiisu banacibi kaas muxuu qaban karaa way haddaan fursad kale ku siiyo mustaqbalka haddii aad waxbarashada dhamaysid maxaad jeceshahay inaad noqotid aniga waxaan jecelahay inaan injineer noqdo sababta injineer u doorato maxay tahay sababta waxa u doortay injineer waan muxuu hamnigeyga injineer waxa u jeclaaday muxuu ahaa sababta shaqada iga soo galaysa shaqo badan baa ka soo galaysa shaqo badan oo mutadawacnimo ahna waa sameynaysaa oo dalka aad ku dhisayso dalkana lacagna dhigan markii wax dhacaan oo kale qarax dhaco oo qaraxyo waaweyn dhacaan lacagteeda barba dhiibaya oo dadkaas aad ku saacidaysaa ilaahay kuma keenay hadduu qarax dhaco aad baan kugu hambaliyeenayaa runtii raganimo iyo waxa ka muuqata dhiiranaan adigoo wiil yara waana kugu faraxsanahay runtii tiyaatar ahaan inaad muxuu fursadan aan helno dhiiranaanta ah hadda waxaa la joogaa taliya Cabdi Diiriye oo runtii muddo ciidanka ku soo jiray Puntland waxa uu ka agdhow yahay aaga ay dhalinyarta yaryar ay wax ka dhisayaan Cabdi bal dareenkaaga ka waran shaqadan ay ilmahan qabteen ilmaha kan shaqada ay qabteen waa shaqo aad iyo toos anigu aan ugu bogay waa shaqo loo baahnaa waa shaqo muhiim ah meesha tan run ahaantii markaan kaga warramo annagu waa ku dhownahay meesha waa istaagi jiray khatarta ay leedahay waa dareemay waa arki jiray wax badan baan arkay waana nagu dhowdaa meel nagu dhoweeye cunuga yar hadda arrintuu keenay iyo fikraduu keenay waa mid aad iyo toos cajiib ah bilkaws waxa weeye subaxdii horuu gudbay meeshuu arkay inay khatar tahay buu arkay kabacdi hadduu soo noqdana meeshii baabuur yaal buu ugu yimid oo meesha ku gadoomay haddana fikradiisii buu dib wuxuu u fiiriyey inuu asagu isku xil saaro ilmaha yari burhaan soomaa burhaan
wuxuu isku xil saaray inuu lacag intuu aruuriyo yiraahdo ciddii dhisi lahayd ha loo keeno waa shaqo aad u cajiiba meeshaasi khatar way tahay waana wax loo baahan yahay oo loo baahnaa in wax laga qabto wax ka qabasho lahayd cunuga yarna hadda fikradiisa ilaahay baa aqliga siiyay waxaan leeyahay shukran ha weynaadaan leeyahay hana soo koro de wixii aan saal loo sugaa ha wuxuu garan waayo cunuga yarna gartay wax cajiiba weey waa wax cajiiba wadanimadu marka ciyaar maaha yaraan iyo weynaanna ma kala bilkaas waxa weeye de 10 jirkaas aba gartayba inuu wax qabto oo wadadiisi wadaninimada ahayd wax ka qabto khatarteeda hadii arintaas weeye intaasaan kaga baxay anigu hadda waxaan la joogaa burhaan yare hooyadiis Faadumo soo dhawow theater production soo dhawow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shaqadan ay ilmahagu ay waliba ay lacag ku aruurinayeen in muddo ilaa 5 bilooda sidee baa lagaga qariyay sidee baa ku ogaawis bismillaah waa dhawahay walaal Ibrahim aad baa u mahadsantahay fursad bay noo tahay aniga ciyaalka inaan maanta adiga ku haleelno oo selno fursadan waxay jirta dhowr jeer ciyaalkan aan banaanka u saaray buundadaan ay arkeen dhowr jeer markii way weydiiyeen su'aalaha markaas waxaan ku yiraahday buundadu way jaban tahay insha Allah waa la hagaajin doonaa marka maalin waqti dheer oo ka soo wareegtay waxa la yiraahday ka waran hooy hadaan noqdo qofka hagaajin doona ka war markaas waxaan ku insha Allah xilliga levelkeeda gaartay hagaajinaysa hooy hadaan horta la hagaajin saddex nin dhalinyaro bay ahaayeen iskool bay dhiganayeen iskoolka waa bari bay dhigtaan waa 8aad iyo 6aad kale yihiin wiilka maqan baa 8aad gabadhan way ku jirtay fursadda maxay way sheekaysteen waxay ku rishiyeen adigu lacag inay maalin kasta aruuriyaan waxa la siiyaa bajaaj lacagteeda iyo lacagta quraacda waa aruuriyaan waxay ka dhigaan sahal saysan uga kala luminin maalinta waxa la ii keenay lacag waqti adigu asbuucan dhexdiisa waa lacag la ii keenay lacagtaasaan haynaa waxa rabnaa inaad meel baan dhisana hooyo meesha nala hirgelisay aan nagu diidin ayagoo baqayo muujinay anigana akhlaaqiyadka maadaama aan soo siiyay fursad ah inuu qofku wadankiisa dhisto aad baan ugu farxay waan ku dhiirigeliyay waxaan ku tari karaan iraahdo waa inuu ku tarayaa laakiin hadda ayagaaba hawshooda watay biyihii jirgaanka maxay soo dhaansada xagga gaarigaaga maxay nagu caawibay dhaheen waa ku soo caawiyay waqtiga shiftigayga waan ka soo xaqaato eegan maanta u shaqeynayay alxamdulillah waa ku guuleysteen farxadna waan maxay u arkaa inuu ay heerkooda gaarin maanta dhalinyaradan ama carruurtan yar in ay culayska inta leeg ay saaraan oo ay dalka wax ugu qabanayaan waxaa suurtagal ah in aad sabab u tahay adiga ma la wadaagi kartaa sirtaas waalidiinta ku daawanaya ha wala wadaagi karaa because haddaad qofka tustid muxuu ahayd dalka inuu asagu leeyahay waxaan uga sheekeeyaa dadka tagay oo dalka ka tagay iyo waxyaabaha ku nool yihiin sometimes in dalka qofka wadankiisa ka tagay ciqaamadu ay ka dhacdo lagu xiro kaleeto wadanka si raaxala u soo mari karaan anigu wadanka mar banaanka u baxo si raaxala u soo mari karaan waxaan dhahaa marka ciqaamada ka dhacay waxba ka dhacay marka waxay dhahan wadanka ahmiyadan muxuu ahayd u hayno waxaan ku cadaynaynaa inaan muxuu ahayd wax u qabano iyadoo dawladda hawshii hayso hadda maanta sheekada iga sheekanay waxa kamid ah wadooyin la dhisayaan soo marna sababta dawladuna ma hawl yaro shaqay wada de shacabkiina wuxuu u baahan yahay shaqo marka waxa dhan dhalinyarada ciyaalka dadka iskoolka iyo jaamacadaha yooda waxaan u bilaabaynaa horeyna maxay tahay qaarkood ay u sameeyaan u bilaabaynaa inay hawshan hadeertaan ay u soo jeestaan hadalladooda waxaa kamid ahaa inay dhaheen xitaa qofku inuu quraacdiisa u soo sharo dhulkiisa baan rajaynaynaa bay igu dhaheen marka insha Allah anaga dhan farxad inoo wada tahay marka waalidka waxa la wadaagaysaa in waalidka waxa la wadaagayaa haday ilmaha wadanka aad jeclaysid hada hooyada haday ku jirto kale waxa ugu weyn dadka wax bedelo waa hooyada qofku hooyadiis ilmuhu hooyada buu badanaa ku taxalluqa wixii 15 sano koos marka hooyada haday wadanka uga sheekayso wadanka jacaylkiisa uga sheekayso waa nicmo rabbaaniye ma ogtahay wada marka haday uga sheekayso ilmuhu wuxuu qaadanayaa macalinka ugu horeeyo toos waa ka qaadanayaa muxuu ahayto hadalka aad baan ugu faraxsanahay inay maanta waa walaalahay iyo wiilkayga waa ku faraxsanahay isleegiin mataamaha la dhahaa marka waa ku faraxsanahay maanta inay hawsha guushaas gaareen aad iyo aad baa u mahadsantahay anagoo shacabka ku daawanaya matalayna aad baan kaaga mahadcelinaynaa waxaana filayaa abaalmarin inaad mudan tahay hooyo qaali aad tahay aad baa u mahadsantahay insha Allah daawadayaal tani waxay muujinaysaa runtii in dalku wacyigiisu uu kor u korayo dhalinyaro badan runtii ay ku dhiiranayaan in ay wanaagan ay sameeyaan kuwa badanna aan ogahay oo la fac ah runtii muxuu ahaa da'yarkan in ay sidaan oo kale doonayaan laakiin tallaabaqaadku uu harsan yahay waxaan rabaa halkan inaan ka xuso wiilkan hooyadiis oo ah hooyo aad iyo aad u wanaagsan ayaa runtii uga sheekeyn jirtay muxuu ahaa in qofka yar
markii uu weynaado iyo markii uu yar yahayba dalka uu xaq ku leeyahay oo loo baahan yahay inuu qofkaasi yar uu dalka wax u qabto hadalka hooyadiisa ay ku dhahaysay aawadeed ayuu dadaalka u sameeyey daayarkan waxaana runtii ay taasi muujinaysaa waalidku haddii ay dhalinyarada aad u booriyaan siiba carruurta ay aad u dhiirigeliyaan in ay halkaasi ka dhalan karto guul wanaagsan oo ay dalka u soo hoyaan dhalinyarada yaryar iyo kuwa dhexeba waxaan rajaynayaa in aynu qayb ka noqonno dibudhiska dalka waxaana aan halkan ku xaqiijinayaa waxqabadka la sheegaahi ee la tilmaamaa inuu kan uu qayb ka yahay oo weliba uu ugu muhiimsan yahay waxqabad wanaagsan ayaad qabateen waana mahadsantiin adeer aad iyo aad baana kugu hambalyanaya mahadsanid